السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا وناقصن هالكني واسطة برشوان وبرتوا قبرتين برشة علم الكمبيوتر كي يحوجها مهمك 10 كيلو نروح نقولنا 10 كيلو بعتنا ده كوساب سنة كويك بوك بوينت اوف سيل فيرجن 19 أما بوينت اوف سيل كا 10 كيلو سجالي تمناد وحن كوسو قاعدناي قاب كلو سميه هول أو مركزي ألعاب هول لوجو قبطان قف مركزي أكون أنا هنديناين balse maanta 10 keena 20aad wuxuu ku saabsanaan doonaa qofkii hoolka ugu qabanay sidee ayaan alaabtii cash ugu bedeli karnaa isora waxaad ma doontaa halka ay ku qoran tahay hal receipt-da ama waraaqaha ku qoran tahay alaabooyinku ee markaas ay sii qaadatay ee wili kor loo hayo ee deeyo cash minaan tagin hadaba si aan uga sii daayo halkaas adigu jooga ayaa hal mar click si doonta click marka siiso lifaaq yar ayaa ku furmi doona oo la yiraahdo hal receipt waxaana ku sheegi doona tirada inta waraaqood ee markaas halka ku jira inay tahay hal waraaq waxa uu ku sheegayaa in halka aad ku dhufan karto oo markaas aad view garan karto warqadaasi markaas in halka ku jirta view marka nahno click si halka yare blue ah way furmi doontaa warqadaasi halkan baynay ma doontaa halka marka timi wuxuu ku sheegay date-kii warqadaasi halka lagu qabtay oo ahayd bisha 7/12/2025 ka sidoo kale wali warqadii waxay ku sii jirtaa hakadkii balse halka marka joogto ayaad oran doontaa unhold marka tiraahid click ayaa sii doontaa click marka siisid unholdigi way ka bixi doontaa oo waxay ma doontaa maalintii meekii selka sameeynayay sida aad u sameysay waaye hadaba si aan nahno lacagtu u diray waxa oranayna inta hoose magaca marka laga reebo iska masaxayna waxa oranayna sent wuxuu ku diray the merchant ku diray ku diray lacagta 48 dabeetana waxa oranayna safe marka naano cash ayay noor doonaa sidii caadiga ahayd hadday iibkii saxda ahayd martay warqada maanta walaabta naga sii qaatay waxa la ixtiraaca ama calaamado muujinaysa haba yaraatay ma jirin laakiin maanta noqotay wax hadda la iibsaday oo iibkii saxda ah ee cash tay martay haddaan sales ka tagno oo sales history gaan tagno oo dadana qaasi tagno oo falaadha ka soconahay today 48 gaas ayaa la iibsaday maanta waayahay 10 keena wuxuu ahaa 10 kooban oo nuxurku xambaarsan yahay ujeedada 10 ku ay ahayd in shaygii aan holding receipt ka soo dhignay inaan unholding nahno process kaasana la maraya waana ka ugu fudud hadii aad ka qabto wax faalaha ama doonaysa faafaahin dheeraada fadlan waxaad nagu dhaaftaa commentiga hoose ee bartaan ku leenahay social media mahadsanid